بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة في الله، كسودواد تحانهني إلا من أتى الله بقلب سليم. وحين كل حجرني أسس إصلاح القلب، waxyaabaha qalbiga lagu hagaajiyo ama hagaajiyo waxyaabaha aasaaska iyo saldhigga u ah. xalqadani waa xalqadii shanaad, waxaanan insha allahu ku soo bandhigi doonnaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala arrin aad iyo aad muhiim u ah, arrinkaasoo ka mid ah waxyaabaha aasaaska u ah hagaajinta qalbiga iyo daaweyntiisa, waana siyaru alambiyaa'i wasaalixiina wa mujaalasatihim. dadkii wan wanaagsanaa oo ay ambiyada ugu horreeyaan siiradooda in laga sheekeeyo iyo siday qalbiga u daaweyn jireen, iyo dadka wan wanaagsan in lala fariisto oo la dugsado, ayaynu ku soo bandhigi doonnaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. qalbigu waa meesha adiga noloshaada laga haga weeye. qalbigu markuu yahay qalbi saliim ah, falan yatakallama allisaanu ila bikhayr, carabku khayr moogiye wax kale ku hadli maayo. qalbigu markuu hagaago, walan tasmaca aludunu ila bima yanfac, dhegtu maqli mayso wax nacfi u leh oo aakhriya adduunba wax u gooyo ma ogiye. qalbigu markuu hagaago, walan tushaahida alcaynu bima yuqdibu almawla caza wajal, ishaadu eegi mayso, ku dhici mayso, hadday ku dhacdana way ka soo noqon markiiba wax alla subxaanahu wa tacaala ka caraysiinaya inaad eegto. qalbigu hadduu hagaago, walan tamshiya alqadamaani ilaa amaakina tuntahaku fiiha maxaarim ullah, labadaada gomadood ama lugood u socon maayaan meel ilaahi subxaanahu wa tacaala wax uu xarimay lagu hayo. gacmahaaduna dad wax yeeli maayaan ilaa inay fii sabiilillahi iyo xaq ay wax ugu yeelaan ma ogiye. axibatii fillah, mar haddaynu ka hadlayno siiradii ambiyada iyo dadkii saalixiinta ahaa, kaalaya aynu ku bilowna nabigeennii muxamed aha sala allahu calayhi wasalam, siiradiisa iyo qalbigiisa siduu daahir u ahaa. qaala allahu tabaaraka wa tacaala: yaa ayuha almudathir qum faandir warabbaka fakabir wathiyaabaka fatahhir. mufasiriintu siday u badan yihiin waxay leeyihiin almuraadu bithiyaab huna alqalbu. dharka nadiifi laleeyahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa qalbiga ayay leeyihiin. tahaaradana walmuraadu bitahaara waxaa looga jeedaa bay leeyihiin islaaxu alakhlaaqi waalacmaal, suluugaada iyo dhaqankaada in aad hagaajiso iyo camalka adiga kaa soo fulaya. axibatii fillah, qalbiga daahirka ah marka uu dhammaystirmo, nuurka uu ka buuxsamo, aladraan iyo walkhabaa'ith iyo walnajaasaadna laga nadiifiyo, laa yashbacu min alqur'aan, qur'aanka kama dhergayo. cibaadada ilaahay baa u dhadhamaysa, toobada ilaahay subxaanahu wa tacaala buu si dhaba u qaabilayaa, acmaashaa wanaagsanaanaysa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. qalbiga laakiin aan la tahirin ee ay wasakda iyo qurunka uu ka buuxo, qalbiga isagaa waxaa weeye xumaanta, inta ay xumaanta ku jirta ee la eg tahay ayay xumaantiisuna noqonaysaa. sidaa daraaddeed ayuha alaxibatu fillah, jannada rabbi jala jalaaluhu ma galaan ila atayibuun, waxaana la odhanayaa tibtum fadkhuluuha khaalidiin. gala idinka oo wanaagsan, ay udkhuluuha bisababi tiibatikum, wanaaggiinna iyo qalbi wanaaggiinna ku gala. faljannatu laa yadkhuluhaa khabiithun walaa man fiihi shay'un min alkhubthi. ibnu qayim waxa uu leeyahay calayhi raxmatullah: faida kaana alqalbu طaahiran min alghili walxiqdi walxasadi walkibri walshirki fahuwa fi xaalati kamaalihi. intaas khiyaanada iyo urxumada iyo xasadka iyo kibirka iyo shirkiga qalbiga hadduu nadiif ka noqdo, xaalad markaa dhammaystiran buu qalbigu markaasi uu ku sugan yahay, ama xilli meeshii ugu sarraysay ayuu qalbigaasi joogaa. axibatii fillah, qalbiga nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo siduu nadiif u ahaa, wabitaali markuu qalbigaada nadiif noqdo, dadkaad u turaysaa, ummaddaadaad u turaysaa. waxaana tusaya arrimahaasi inuu nabiga sala allahu calayhi wasalam ilaahay markuu ka warramayey inuu qalbigiisa raxmad ku sheegay, jileec inuu ku sheegay, cunfi iyo ad adayg aanan lahayn. qaala allahu tabaaraka wa tacaala: fabima raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan ghaliida alqalbi lanfaduu min xawlik. ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu nabigiisa ku leeyahay, raxmadda alle sababteeda ayaad ugu jilicsanaatay, ee haddaad noqon lahayd nin hadal adag oo hadalkiisa hadal xun u yahay, qalbigiisana uu adag yahay, way kaa kala dareeri lahaayeen, way kaa tegi lahaayeen, kuma aysan raaceen. laakiin ilaahay baa kuu soo jamciyey, ilaahay baa dhinacaada keenay, ilaahay baa kuu soo dumay quluubtooda, maxaa yeelay qalbigaada ayaa naxariisi ka buuxdaa. alimaamu shaafici calayhi raxmatullah isna wuxuu leeyahay: alquluubu ida kaanat daahira takunu aqraba ila alistimaaci lilnasaa'ixi waalcamali biha. qalbigu markuu daahir yahay wuxuu soo qaabilayaa naseexada iyo talada wanaagsan iyo wixii lagula taliya inuu sameeyo, waayo qalbigaa nadiif ah. أحبتي في الله كان النبي صلى الله عليه وسلم بشوشا نبي وحو أها مد وجه فرفران وجه فرفرنانتنا إسكما إيمانيسو
ilaa qalbigu inay raxmadii ka buuxda ma ogiye mutasaamix buu ahaa raxiim buu ahaa ma adkayn dadka ma dhibi jirin ma caroon jirin nabiga sala allahu alayh wasalam dadka ma caayi jirin wamaa daraba axadan biyadihi qad weligiina gacantiisa qofku muusan dhufanin nabiga sala allahu alayh wasalam kaana sahlan fi mucaamalatihi mutasaamixan طaliqa alwajhi daa'iman buu ahaa markuu dadka la macaamilayo qof dabacsan buu ahaa nabiga sal allahu alayh wasalam qof saamixid badan buu ahaa qof weji furfuran buu ahaa daa'iman nabiga sala allahu alayh wasalam alimaamu alxasan albasrina waxuu leeyahay man asaa'a ilayka faghfir lahu liana dalika aqrabu ila albiri qofkii ku xumeeya u dhaaf maxaa yeelay sidaas ayaa samaha u dhow walcaafiina can innaas wallahu yuxibu almuxsiniin arrinkaana waxay ka soo baxaysaa un qalbi nadiif ah qalbi wax cafiya qalbi maaragtayay ku xisaabtamaya inuu la kulmi doono rabbi cafuwun ghafuur ah kadibna amar ku siiyey iyagu dadka inay cafiyaan walyacfuu walyasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum axibatii fillah jileeca qalbiga nabiga calayhi salaatu wasalaam waxyaabahaynu ka soo qaadanayna waxaa ka mid ah nabiga wuxuu aad ugu naxariisan jiray uguna turi jiray carruurta iyo hooyooyinka xadiidkii waxaa inoo sheegaya imaamu muslim uu soo saaray nabiga markuu salaad gala calayhi salaatu wasalaam isagoo doonaya salaaddaa inuu dheereeyo isagaa ka sheekeeyey salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh innii la adkhulu fi salaa wa ana uriidu itaalataha salaaddaan geli anoo doonaya salaadda inaan dheereeyo fa asmacu bukaa asabiyi ilmaha oohintiisaan maqlayaa fa ukhafifu markaasuu salaaddii fududaynaya mima aclamu min shiddati wajdi ummihi min bukaa'ihi ilmaha ooyaya oohintaa saamaynta ay qalbiga hooyadii ku leedahay ogaal aan ogahay daraaddeed ayaan salaadii rabbi ee cibaadada haldoorkeeda ahayd ayaan u gaabiyaa buu yidhaahdaa allahu akbar marka naxariista noocaasoo kale ah turidda noocaasoo kale ah waxay ka soo baxdaa un qalbi nadiif ayay ka soo baxdaa alimaamu nawowi caleyh raxmatullah isna wuxuu leeyahay ina riqata alqalbi min acdami alasbaab alatii tuyasiru alinsana an yucaamala alaakhiriina bilxusna wayajcaluhu qariiban min raxmat illah qalbiga wanaagsan iyo qalbiga jilicsan insaanka waxay sabab ugu noqotaa inuu dadka si wanaagsan oola dhaqmo raxmadda ilaahayna uu dhowaado intaasoo keliya ma aha nabigu calayhi salaatu wasalaam weli nabi maxamed baynu ku jirnaahe ummaddiisa ayuu maaragtay u turi jiray ummaddiisa ayuu qalbiga ka tabi jiray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid ah ayuu wuxuu akhriyey qowl allahi tabaaraka wa tacaala fi ibraahiima calayhi salaam faman tabicanii fainahu minii qofkii aniga isoo raaco aniguu iga mid yahay wa talaa qowla ciisa calayhi salaam hadalkii nabiyullaahi ciise ilaahay uu sheegay isagoo nabiyullahi ciise ka warramaya in tucadibhum fainahum cibaaduk labadaas hadal buu akhriyay nabiga sala allahu alayh wasalam ثuma rafaca nabiyu sala allahu alayhi wasalam yadayh waqaala allahuma ummatii allahuma ummatii ilaahu ummadayda ii badbaadi wabakaa wuu ooyay nabigu sala allahu alayhi wasalam faarsala allahu jibriila liyaquula lah jibriil baa loo soo diro allah uu soo diray markaasuu wuxuu yidhi innaa sanurdiika fii ummatika walaa nusii'uk ummaddaada waan kugu raalligelinaynaa waan kugu badbaadinaynaa kumana ma aragtay xumaynayno ayuu allah subxaanahu wa tacaala uu ku leeyahay imaamu muslim baa soo saaray ayuha alaxibatu fillah siyaru alanbiyaa'i wasaalixiina wa mujaalasatihim mar haddaynu ka hadlayno kaalaya aynu eegna nabiyullaahi ibraahim khaliilullah ilaahi subxaanahu wa tacaala baa ku ammaanay bisalaamati qalbihi faqaala caza min qaa'il waina min shiicatihi laibraahim id jaa'a rabbahu biqalbin saliim qalbi fiyow inuu alla siiyey ayuu allah subxaanahu wa tacaala ku sheegay nabiyullaahi ibraahim qalbiga noocaasoo kale ah fii jannatin mucajalatin fi dunya buu ku sugan yahay adduunyada intuu jooguu janno ku dhex jira barzakhna jannuu ku dhex jiri doonaa insha allah jannada maalinka yowmulqiyaamana jannadii rabbi buu geli doonaa qalbiguna qalbi saliima ma ahaanayo ilaa inuu ka nabadgala ma ogiya min shirkin yunaaqidu tawxiid shirki ka soo horjeeda tawxiidka ilahi iyo iimaankiisa iyo wa bidcatin tukhaalifu sunna bidcada inuu ka nabadgalo oo sunnada iyadana ka soo horjeeda iyo wa shahwatin tukhaalifu lamra amarkii lagu amray shahwadaadii iyo naftaadu waxay doonto inaad ka raacdo inaad ka nabadgasho ayuu qalbigaadu saliim ku noqonaya wa ghaflatin tunaaqidu dikra inaad maaragtay moognaan aad ku sugan tahay iyo mahsanaan iyo dayac inaad ku sugan tahay oo aad ka mashquulsha dikriga ilahi subxaanahu wa tacaala iyo wa hawa yunaaqidu tajriida walikhlaas hawo inaad hawadaada daraaddeed wax u samayso aargoosi daraaddeed inaad wax u samayso wax kale iyo dan kale taasoo ka soo horjeeda ikhlaaska iyo tajriidka shantaa arrimood waa shirkiga iyo bidcada iyo shahwada iyo khaflada iyo maaragtay hawada shantaa arrimood waa xujubun can illaah ilaahay bay kaa teedayaan adiga iyo ilaahay bay idinkala dhex gelayaan shantubana qalbigay ku dhacaan shantubana qalbiga ayay ku dhacaan walaalayaal axibatii fillah ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu ka warramayey nebi moxamed iyo dadkii saxaabadiisa ahaa ee uu barbaariyey wuxuu yidhi muxamedun rasuulullah waladiina macahu ashiddaa'u cala alkufaar ruxamaa'u baynahum way isu naxariistaan gaalada way ku aad adag yihiin laakiin iyagu way isu naxariistaan u fiirso xaaladda muslimiinta maanta qolo walba qoladay dariska la tahay baa lagu imtixaamay oy u xoog badan tahay oo ay maaragtay hubkeedii iyo adduunkeedii oo dhan
caalamulislaami xoolahoodii o dhan waxaa qaba hub laga soo iibsaday israa'iil iyo maraykanka aan haddanana waxba lagu qabanaynin ee maaragtay la isugu faanayo un marka waa cagsi markuu intuu ku sheegay allah subxaanahu wa tacaala nebi muxamed iyo asxaabtiisii waxa weye ashiddaa'u cala alkufaar ruxamaa'u baynahum soomaali haddaynu nahayna maanta deriskii waa la isku imtixaamay dhiigga daadintiisii waa la fududaystay ayadaa isu xoog badan soomaali khayraadkeedii iyo baddeedii iyo diinteedii iyo dhallinyaradeediina waxa weeye badahay ku dhammaadeen waxa weeye dumarkeedii iyo maxasteediina waxa weeye qurbaha ayay ku silicsan yihiin waxaasoo dhan maxaa keenaya waxa weeye waa isu xoog badnaanta iyo isu muuqashada iyo inaad u xoog badnaato walaalka waana cagsiga intuu nebi maxamed iyo asxaabtiisa iyo inta raacsan uu ku sheegay ashiddaa'u cala alkufaar ruxamaa'u baynahum axibatii fillah qalbiga waa inaan nadiifinaa axibatii fillah asxaabu rasuulillahi iyo nebi maxamed inay saa yihiin markii la sheegay innagana inaynu ku dayannoon iyagoo kale iska doondoonno ayaa lagama maarmaan ah siduu ilahay ba yidhi subxaanah waaladiina jaa'uu min bacdihim yaquuluuna rabbana اغfir lana waliikhwanina aladiina sabaquuna biliimaan walaa tajcal fii quluubina gila liladiina aamanuu rabbana inaka ra'uufu raxiim waxay dhihi jireen dadkii wan wanaagsanaa oo saxaabada gadaashooda yimid waxay yidhahdeen rabbana اغfir lana waliikhwanina aladiina sabaquuna biliimaan allow noo dembi dhaaf walaalaha nagii nooga horreeyey iimaanku iyo saxaabadu hormuud u tahayna allow u dhaaf walaa tajcal fii quluubina gila liladiina aamanuu qalbiganagana ilaahayow xiqdi iyo urxumo iyo caloolxumo iyo cuqdad ilaahu ha u gelinin kuwa alla subxaanahu wa tacaala rumeeyey inaynu waddadaa qaadno way ayay ku saabsan tahay waanadeennu ay ku saabsan tahay sufyaan ibnu dinaar waxa uu yidhi uuna ku yidhi ninka la yidhahdo liabi bashiir oo ka mid ah asxaabtii caliy ibni abi aalib radia allahu canhu akhbirnii can acmaali man kaana qablana dadkii annaga naga horreeyey acmaashoodii bal ii waran faqaala wuxuu yidhi markaasi abi bashiir wuxuu yidhi kaanuu yacmaluuna yasiiran wa yu'jaruuna kathiiran in yar bay la iman jireen oo ikhlaas iyo mutaabaco iyo maaragtay diinta nebi maxamed diintu ka tegey iyadoo lagu camalfalaya camal yar bay la iman jireen laakiin haddanana ajirkooda ajir aad u badan buu ahaa qultu waxaan yidhi walima daaka maxay tahay sababta arrinkaasi keentay qaala lisalaamati suduurihim laabtooda laabxaadnaan bay ku gaareen arrinkaasi qalbi wanaagsan iyo daacadnimo iyo qalbigoodoo saafiya ay arrinkaasi ku gaareen ninka la yidhaahdo zayd ibnu aslam ayaa wuxuu u galay ninka la yidhahdo abu dujaana radia allahu canhu isaga oo jiran wa kaana wajhuhu yatala'la sakaraadkii baa haya wejigiisuna waa nuurayey faqiila waxaa la yidhi maa liwajhika yatala'la waa sakaraad baaba tahaye laakiin wejigaaduna waa ifaya oo bashaashnimaa ka muuqataye waa maxay sababta faqaala wuxuu yidhi maa min camalii shayun awthaqu cindii min ithnayn camal aan la imaado laba un baan ugu jeclahay oon ugu kalsooni badannahay ama axaduhumaa fakuntu laa atakalamu fii ma laa yacniinii wax aniga maa laa yacni kumaanan hadli jirin wa ama alaakharu arrinka kalena fakaana qalbii saliiman lilmuslimiin qalbigaygu wuufiyoobaa nadiif buu u ahaa muslimiinta oo qalbiga waxaa oga buuxday jacayl iyo kalgacallo iyo walaaba oga buuxay ninka la yidhaahdo alqaasim aljuuciyi raximahullah isna waxaa laga sheegay inuu yidhi asludiin alwarac diinta asalkeeda waa xalaal miirashada weeye inaad xalaal miirad noqoto weeye asludiin wa afdalu lcibaada cibaadana waxaa ugu fadli badan mukaabadat lleyl habeenkii inaad cibaadada ku daasho wa aqsaru طariiqin liljanna wa salaamatu sadri waddada ugu gaaban ee ugu dhow ee janno rabbi lagu mutana waxa weeye waa laabxaadnaanta weeye ayuha alaxibatu fillah nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam nabi ibraahim calayhi wacala nabiyina afdal salaati waatamu tasliim ambiyadii oo dhan asxaabu rasuulillaah iyo waman tabicahum biixsaanin ilaa yowm iddiin in aynu sheegnay iyo inaynan sheegin iyo inaad igaba taqaanaanba markii la isku wada daro siiradoodu waxay inoo sheegaysaa meesha ay ka guulaysteen waa qalbiga meesha ay cibaadada ka dhadhamiyeen waa qalbiga waa ku celcelinaynaa arrinkaas waa ku celcelinaynaa ku celcelintana yaan la dhibsanin maxaa yeelay jirkaada cuntada aad siiso bariiska iyo baastada iyo hilibka iyo baradhada waad ku celcelisaa kamana daashid qalbigana wixii wanaag u ah iyo wixii quud u ah in lagu celceliyo oo jumlooyin isku mida lagu celceliyo oo maantoo dhan ku celceliyo caano oga keena ay noqoto waa lagama maarmaan qalbigeenna aynu hagaajinno dadkaasi wan wanaagsana ambiyada iyo dadkii saalixiinta ahaana qaab nololoodkoodii iyo sooyaalkoodii aynu ku dayanno walaalayaal sooyaalka uu ka buuxo iimaanka iyo qabsashada kitaabka ilaahay iyo qalbiga nadiifta ah iyo in dadka loo turo oo qalbi wanaagsan waxa ugu horeeya dadka wax u tarayana waa inaad qalbigaada aad maaragtay u furto waa inaad maaragtay qalbiga aadan cuqdad iyo xumaan aadan ugu qaadin weeye taasaynu walaalayaal marka isku waaninaynaa نسأل الله تبارك وتعالى أن يمنحنا قلوبا سليمة وأن يهدينا إلى طرق إصلاحه يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام أيها الأحبة في الله انتين أوقكل من دونه حلقة اللحاد ولكن عبد الله الشيخ حنبلي إذن له أترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته